السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا شارب الشو وعاد مرور باكلا سعطان برطان يوتيوب كان كلنا هاي شارب شو هذا بيشا ماتوا أفرت بيشا لبيه تمنات لبدا كون إيا لباتنكا برامجيدا بردقة شارب أن كسو قادرين أنه واحا كمد محمد عبد الله فرماجو مدحوينها الدولة فدرالكاي سوماليا اسكو دي هي مركرة إنو كاركي بينتا هيد ودنيا ده وجابك kala soo baxo si uu umada 4 sano oo dambe ugu qaldo wadani baan ahay isagoo shalay naga gaday oo doorashada ku soo galay umada Soomaaliyeedna ay ku wada taageertay in uu Ethiopia meel saarayo balse wadiyanadii maanta waxay ka gashay Kenya taasoo ah bor isku qaris oo ku rabo in uu xukunka ama siyaasadda uu ku gaaro ama la soo doorto 4 sano ee soo socda qodobka kale ee nuuxiga ayaa wuxuu yahay musharaxa madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo asaguna la kulmay axmed ciise cawad wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalkaasi Soomaaliya ayagoo ka wada hadlay qaabka doorashada u dhacayso iyo doorasho la isla ogol yahay inay dhacdo iyo qaabkii meesha looga saari lahaa dictatorka weyn maxamed cabdullaahi farmaajo ee xukunka isku dhijinaya lana noqday cadowgii Soomaaliya saaxiib ee Ethiopia محمد عبد الله فرماجو مدحوينها فدرالka ee Soomaaliya xilligiisa muddada 2 bilood aan dhameyn ay ka hartay ayaa isku dayay inuu bilaabo wadaniyadii lagu yaqaanay ee isku oohisin jiray xilligii hore ee doorashada dalka Soomaaliya uu ku qalday umada Soomaaliyeed ay u qaateen nin wadani ah maadaama ninkaani uu ku soo baxay xilligii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo ahaa madaxweynihii dawladda ku meelgaarka ah Soomaaliya oo ra'iisul wasaare u magacaabay muddo 6 bilood ah kadibna xukunkii laga qaaday intaas kadib ayuu farmaajo wuxuu bilaabay baroor ah iyo saxaafadaha iyo meel walba inuu ka hadlo oo yiraahdo wadani baan ahay anigu diyaarad raaci maayo anigu maxaliyada ka bixin maayo hotel qaali ah lacag diyaaradda lacagtan ku raaci lahaa ama VIP dan ku raaci lahaa ama hotel 5 stars ku seexan lahaa umada Soomaaliyeed baan siinaya qoys walba la kulmaya cid walba oo Soomaaliyeed oo wax iga tamanaysa barteeda ugu tagaya Ethiopia waa la dirinaynaa waa cadowgeeni meel baan iska saaraynaa balse بالعكسيدي فرماجو إثيوبيا صاحبكي كوباد بولا نقضي gobolladii Soomaaliyana weerar buu ku bilaabay oo maanta ugu dambeysay beledweyne oo xabadu ay ka dhacayso waa maanta aan la hadlayno oo barnaamijka bandhiga Shaarib Show ku jirno iyo wixii ka dhacay gobolkii Gedo iyo Kismaayo oo isku dayay cunqabateyn uu saaro balse madaxweyne Axmed Islaan Axmed Madoobe oo halkaas si kartile uga dubashay shirqooladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la maagana iyo Puntland oo intaas soo weerar iyo handadaad uu ku qaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba markaad fiirisid haddatan dagaalku kula jiro in uu umada Soomaaliyeed dib ugu soo laabto ayaa waxay tahay mid haba yaraatee aysan umadu asmacaynin wadaniyadii Farmaajona meesha ay ka baxday taasi oo aan la aqbalaynin badda Soomaaliya ee la isku haystana ay tahay badda kaliya ee Soomaaliya kheyraadkeedu ka buuxo ay u taagan yihiin wiil iyo gabar Soomaaliyeed siyaasi iyo uqaal umada Soomaaliyeedna aysan hayn Farmaajo qura haddaba wadaniyadaasi meesha ka sii dhamaatay markuu ka hadlayay oo dalkaasi Ethiopia ka hadlayay wadanka ka soo galay baad wax yar insha Allah la dhageysan doontaan iyo farmaajooyinka iyo dabinada iyo qiyaanada iyo oohinta beenta ah ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu yaqaano isagoo isku daya hadba kaligiis wadani inuu noqdo oo jaabka wadaniyada uu kala soo baxo hadba waxay la dhageysanaysaan markuu ka hadlayay Ethiopia doorashadii ugu horeysay uu soo galayay 4 sano ugu dambeeyay burburkii Soomaaliya in Soomaaliya aad loogu hayay fargelin qaawan toos ah iyo mid dadbanba khaasatan sanadii ugu dambeeyay iska cadeed dawladaha dariska ah khaasatan Ethiopia inay toos siyaasadaha Soomaaliya ay fargelin ugu haysay mar alla markii anigu aan tagay meesha oo aan la fariistay prime ministerkii hore Xeele Maryam waxyaabihii ugu horeeyay kala hadlo waxay ahayd in Ethiopia ay ka joojiso fargelinta qaawan ee Soomaaliya ku hayso oo aan u macaamilno laba dal oo daris ah aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo
iskaashiga siyaasadeed ee laba dal ay lahaan karaan. waxaa ka dambeeyey 7 bilood ka hor in Ethiopia ay dooratay prime minister cusub. prime minister-kan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in sidaad maqlaysaanba maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu isku dayahayaa inuu mar kale kusoo galo doorashada kenya ayaa cadowgeena kenya la dagaalamayna sidaad ogtiina wuxuu fasaxay qaadkii ka imaanaya dalkaasi Ethiopia wuxuuna diiday inuu laga soo gato qaad dalkaasi kenya ama ganacsi ahaan u yimaado inagoo ognahay malaayiin qof oo Soomaali ah inay qaxooti iyo hantiba ku leeyihiin qaarna qaxooti ku yihiin qaarna hanti ay ku leeyihiin dalkaasi kenya oo dabaqyada ugu dhaadheer magaalada Nairobi ay ku leeyihiin Soomaalidu bilaayiin dollar oo ganacsigana ay ku leeyihiin balse arrinta badda ee Soomaaliya u dhaxaysa maxamed cabdullaahi farmaajo uu rabo siyaasad inuu ka dhigto waxaan ognahay kenya inaysan xoog ku qaadan karin bad ay Soomaaliya leedahay Soomaaliyana aysan xoog ku qaadan karin bad ay kenya leedahay sharci caalamiina uu jiro sharcigaasna lagu kala baxayo oo ah maxkamadda caalamiga ah Hague ee dalkaasi Holland ee qaramada midoobay ayadoo uusan ahayn farmaajo ninkii dacwadaas bilaabay ama kenya dacwadda ka geeyay maxkamadda caalamiga uu ahaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya كاننا إن دولة صوماليات لأقون صداء ولا جسر كمل جرنمدي مدحوين حسن الشيخ محمود هذا بقى أنت أصلا كوسو كوبينا في شهر نمدا بنتا إياه هذا بكار كبنتا يزوهين ومدر ربا إنه ودنيا دوجلا برسان نصيب ما أنت إن النقطي إن أسجع يفهد ياسين أي مدحتوي ذا كوسو هران لنا عكلا مركان إجنو وحشر كل مي مشرح مدحوينه مدن عبد الكريم حسين جولاد إياه وزير كوريا أريمها دبدة الصومالية مدة بيرك كورا حكم كتجي وزارة أريمها دبدة أحمد عيسى عوت أيوة كوكل ماي قصر جورجا ودقية هاي وزير كوريا أريمها دبدة عوت أي عبد الكريم حسين جولاد وحوش جاي إنه كوضع حضلين حض السيد الصومالية درشة أوجل الكرتو إيه قابك محمد عبد الله فرماجو إيه لورنا فين لها فيلا الصومالية سي أمضى الصوماليات وحقبض هجاكسن لوجو قبته إيه إن أمضى الصوماليات أي هلان دول النمو أصل كيدو هاي تير تاسي أي كوضع حلين أحمد عيسى عون الشيء إن أكلم وين كقادم دونه دول النمو الصومالية أنا أجوزيرك هراء وحبرشة ساكن برامج هذا هراء دجال كبلدوينه عن كوسو قادرني إن أو شيء فرماجو إن أو يهاي مجرم ماشى فدية أمضى الصوماليين يكو قدمتي أحمد عيسى عون نوحو شيء إن أو شجرة أي القمن دونه مرمها صوص عدا ونكهل دونه وحا أسجع إيا فرماجو أي كو كلاتجين إيا سببته وزارة أريمها دبد اللواء قاضي كدي مركي إيميل أو قري أما تويتر كيسو كوسو قري إن حال صوماليا كتهاي دجال كتجري إثيوبيا دالكاس إثيوبيا كصعدة برسم مركز دمبه لو قصبي أحمد عيسى عود إنه كسره أو يراهدو أنا ودولد إثيوبيا أيام قرب استاجنا هاي برسم وديدي أو تاسوحه الشيء إنه سمرنا بقى تويتر كوزارة الرماة دبد الصومالي يسقو قرينين إن أبي أحمد وقرب تاجين هاي ونكسر هرجيدو أو كسر هرجيدو تجريجا برسم الشيء إلى على حد كيهين قلاف كاسي مرة ورمها هي شركة الأحمر يا سجى عبد الكريم حسين جولاد أحمد عيسى عود وحوش شاقي إن فرماجة مركي أي كل من أو سود دمبيسي أو شاقي إن إثيوبيا أي لنا عرنتي دول عدونتو أي هشين دونان برين اللي جاي أبو تكريه يقولون حكم كوسو اللابتان أما قولك لا أم حارض أي قبضته أما أرمضوا أسيه يسوتو أبي أحمد وكل شيء بس أنا قل الحاد نقول بهاي علاصة كي كتاجن سيدا أرجع لها وضعك الصومالي يبا دولتها درس كأن علاض وهين بس محمد عبد الله فرماجو كويري صاحب كوباد الله هاي وأبي أحمد وأنا إنا أصلا كوكر بستكتا تاسيبان كوكر تجني أيور شقي كدمنا وحوش شقي إنه دمعي إن سفير على الأطور ويطوره برسي وحو يري أحمد عيسى عود أرنتاسي وانكدي فرماجو هذا أحمد عيسى عود أيار ربا هدرتان إنه كبيرو حسبيدا ووين دلكا ترتمها هي مدحوين النمدا فدرالكا هي صوماليا سي وهلكا سي وصبحو دورشوينكا سو سocda una noqdo nin kaalin ku yeesha mustaqbalka siyaasadda dalkani Soomaaliya hadaba intaas ayaan ku soo koobaynaa maanta bandhiga Shariba Show halkaad kala socotaan waa Shariba Show waxaad leenahay waqtigu hadii wacnaado meel walba joogtaan dunida haday habeen tahay haday maalin intaay haday subax idin tahayba waqtiyada kala duwan iyo qaaradaha kala duwan ee Soomaali weyn aad ku kala nooshiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh